بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dunida iyo haatan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah hadii Allah weyn ee waaxidka waraali ka noqdo wararkii ugu dambeeyay xiisada dagaal ee gobolka bariga dhexe oo marba marka ka dambaysa ka sii daraysa waa maxay sababta barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran iyo militariga wadanka Mareykanka mid ka gardaran barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo guulama ka imaan doonta telefoonada isdaba jooga ah ee ku kala dhacaya Washington iyo Tehran barnaamijka ku soo qaadan doona dawladda wadanka Qatar iyo Pakistan oo galka seefta kala baxay Turkiga iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta oo noqonaya marxaatiga nool barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo Israel oo xabsiga dhigtay qaar ka mid ah xildhibaanada wadanka Mareykanka ee booqashada ama hawlo shaqo u tagay dhulka ay xoog ku haysato hadda waa xildhibaano Amerikaan yaa ka mid ah barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo Israel oo laga celcelinayo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran iyo ilaalada kacaanka oo leh oo yaa gacmaha ku haya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii Allah ka dhigo maxay soo kordhinayaan diyaaradaha dagaalka ee dawladda wadanka Mareykanka ay ku soo daabulayso gobolka bariga dhexe iyada oo maraakiibtii dagaalka ee wadanka Mareykanka ay kala cararayaan barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran oo laf dhuun gashay ku noqotay madaxweyne Donald Trump bal waxa uu ka walwalayaa inuu ku baxo gacanta wadanka Iran madaxweyne Donald Trump barnaamijka ayaa ku soo qaadan doona hadii Allah ka dhigo wada hadaladii ugu dambeeyay ee ka soconaya magaalada Masqad ee caasimadda wadanka Oman dagaaladii u dambeeyay ee dhacay waxa sababay dawladda wadanka Iran oo ciil daraadad fururiyaha qaniinaysa isu tag Imaaraadka Carabta oo gacan kulul ay gaadhay barnaamijka ayaa ku soo qaadan doona hadii ay buweyne raali ka noqdo aad baad u mahadsantihiin u duceeyay wadankeena Soomaaliya inuu Ilaahay ka dhigo kan ugu xoog badan uguna dhaqaalaha badan qaaradda Afrika dadka muslimiinta ah meel ay joogaan ul iyo diirkeeda Allah ka dhigo inta xanuunsanaysa caafimaad taam Allah siiyo illa adh-dhaalimiina wal faajiriina wal mujrimiin inta baahan wax badan oo baraka leh Allah siiyo dadka muslimiinta ah ee mujrimiinta iyo munaafiqiinta iyo gaalada ay xabsiyada ku cadaabayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo sidaayo dambigooda Allah ha dhaafo eheladoodana samir iyo iimaan qalbiga iyo qulubta Allah ugu buuxiyo dawlad Soomaaliyeed oo muslima oo sunniya iyo hogaamiyaal Umar ibn al-Khattab iyo Salahuddin al-Ayyubi iyo Umar ibn Abdul Aziz u dhow ayaanu Ilaahay ka baryeena dadkeena qulubtooda burcad Allah isku mariyo dalkeena Allah inoo hagaajiyo amni iyo amaano Ilaahay inooga dhigo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada dadka reer Falastiin iyo reer Lebanon dhibaato gaar ah ayaa haysatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado sida ugu dhow soo dhawaada waxaag markuu ugu horeysay waadinkii la socday 24 saac la soo dhaafay dagaal qaraar ayaa dhacay oo waliba militariga wadanka Mareykanka ayaa dhowr goobood oo ku yaala koonfurta jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran uu duqeeyay sida ay warinayaan warbaahinta dawladda wadanka Iran iyo guud ahaan caalamkaba weerarkaas goormuu imaanaya marka dawladda wadanka Mareykanka waxay iskuna dayaysaa inta badan inay Iran ma jaxaabiso iyada oo wada hadalladu ay socdaan sidii ay berigii hore yeeli jirtay oo caalamul islaami oo dhanba inta hadda joogto waxay iska yihiin kuwa caloosha u shaqaystayaal moogto marka iyadoo ay wada hadallada soconayaan oo sheekadu wada hadal baa socda la leeyahay ayay haddana waxay rabtaa in qodobadii lagu heshiiyay ay jabiso in Lebanon la sii weeraro in gacanka Hormuz xoog lagu maro maraakiib dagaal oo dawladda wadanka Mareykanka ay leedahay Hormuz inay ku soo dhawaadaan laakiin wakaalada wararka ee wadanka Iran ee Mahir iyo wakaalada kale ee Faris la yiraahdo waxay warinayaan ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran yani khiyaamooyinka dawladda wadanka Mareykanka wada agtooda kama soconayaan aslan bana heshiiskan hadda la galay ilaalada kacaanka iyo hogaamiyaha ugu sareeya wadanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran Ayatollah Mujtaba Ali Hussein Khamenei raali kama baahayn laakiin waxa lagu ixtiraamayay madaxweynaha wadanka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinta xukuumadda ee la doortay ayaa lagu ixtiraamayay iyaga keenay laakiin
Khamenei waa sheegay mujtaba waxaan inaan mirdhal noqonin wuxuu yiri laba awr baa la yiri geel kuma wada qooqdo marka wuxuu leeyahay anaga iyo Mareykanka bariga dhexina ma qaado marka isagaana fudud oo koyta laakiin ala itaal markii dambuwatil ogolaaday waxaas way baaba'een laakiin wasiirka dagaalka dawladda wadanka Mareykanka Hexas ayaa isaguna u sii hanjabaya jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran wuxuu leeyahay waan burburi doona waa ku dilaya wallahi muslimku ma cabi sumuureen madax ka goyn Iraniyiintu ay horta khaladka jira ay dawladda wadanka Mareykanka fahansan tahay baa wuxuu yahay in degdeg iyo waa ku dilaya iyo waa ku ciqaabaya marar badan bay ku soo caanamaaleen Afghanistan bay kaga duuleen Iraq bay ku burburiyeen nimankan caroosh u shaqeystayaasha ah ee carbeed ee xijaaban bay ku duleysteen marka nimankan wax ka hor yimaado yur dhahaaba weligood ma arag Turkiga ay ku adoonsadaan yacni wax kasto yira waa rabnaa Iran waa loo yeelay laakiin ayaamahoodii maalmahaas way tageen waxa soo baxay rag rabbigood ku kalsoon waxay gacmooda ku sameysteen waa hore meel dhigtay marka way yaabihiin ala taxaal taasi waa toos hawlada marka halku waxa la leeyahay marba marka ka dambeeyay way si xumaanaysaa dagaaladu waxba la isuma reebanayo laakiin ilaa iyo hadda hal su'aal is weydiinaya waxa la is weydiinaya sheekada hadda Mareykanka iyo waxay u maraysaa Iran baa wala duqeynaya ama Mareykanka waxa duqeynay wax noocaas ah hadda markabkii ugu horeeyay Iran baa duqeysay wuxuu isku dayay Mareykanka amar siiyo inuu inta gacanka Hormuz ka wareegto wadanka Cumaan banaankeed meel inuu maro badda Cumaan dabadana halkaas biyaha caalamiga uu ka galo Iran waxay leedahay wixii badahan maraya oo Iran iyo Cumaan intuu dhaxaysa maraya gacankan ay soo maraya markab kale oo meel kale mar kale ma jiro kii isku dayay inuu marana inuu holcaab ballan marka haddii aad la dagaalamo iyaduna marka hadee jawaab ay bixiyeen Mareykanka marka saxan ku gud dhibaato la yarda haysata haddii uu gacan taagabo laba la taagaya marka ما شاء الله الله بركة حقوق الجيسياشة مسلمين تاهود دعية وهكذا هنا حكى مرك وحياة عجيبة يجرو حكم إذا إيران مربى مرك كذا ما يسودن عربيات وهرله هي الدجال كدرسها ولي هذا مركب وروح على جراعة جري الكويت إيو بحرين سلقيد ودك أمريكا حلقة كلها مرد ما قدر على قدري مركب الأردن بالو قدري كي حد قدم بيا إمارات عرب تالو قدري معناها محيطها مركب وحال ليه إن ممكن عربيات علوش وين الجواسيس وان إذن أرجناه oo in anaka la burburiyad mashruuc ka soo qaateen soo ma aha walla adinkuna nabadu ma siixanaysaan walla adinkuna way adinka waa guba doontaan hadii aniga la isoo weerarayo oo wadamadan la iga ilaa Mareykanka saldhiga kala mar soo ma aha adinku waa inaad gubataan markii marar badan bad ku fakateen oo Iraq ba burburiseen oo Afghanistan ba burburiseen oo Soomaaliya burburiseen oo wadamo Yemen ba burburiseen taasa ku nabad gashay laakiin markan waa la isla dhimanaya wax kale ma jiraan ayay leedahay jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran wadamada Carbeed ee marka calooshu shaqeystayaasha ah ee had iyo jeeraale marka Mareykanku ku soo duulayo oo hadda waa imaaraadka lagu daray waliba imaaraadka Carabta iyagu waxay way ka duwan yihiin wadamada Carabta intooda kale maxaa yeelay iyagu waxay ahaayeen kuwii ugu cadowsanaa ee dawladda wadanka Iran dagaaladada ka qayb qaatay lugoynteeda ka qayb qaatay weeraradii ugu dambeeyay haddana waa lagu soo daray marka iyaguna xaalka kulliita Iran marka waxay leedahay ama laba mid ama nabad baan wada ahaanayna waa jireena laakiin hadii aniga kaliya weerarayo oo salagiyadina la iga soo weerarayo oo Israa'iil iyo Mareykanka salagiyadina aniga iga soo weerarayaan wallahi adinkuna nabad ma noqon doontaan goobaha biyahan garaacaya goobaha shidaalkan garaacaya salagiyadan garaacaya meel aan deynaya male laakiin wadamada khaliijka يعني دمانتود هل بوينتي باكو فيلان إن جود هان ساعد أي كبحان نمكن صباح دي لقد دقيو تانجية بيها يجو أنت بدنا بيها استعماله وبيها بدوية وكاسي وصحراء هدي بيها بد يو ورشدها بد مركب بيها سي معاني هدي لا دقيو يعني خبرات هذا وحيليهم مدة بقول سنو كله حتى أم بالله بابا أيا ويو عيل كلام ماله وأقولك وبور أم وصحراء كومنا تلقين إن أي ملك لبيه كهلان مركب وواحد سكو قاتن جد كجرا جنوينك إلى هاي برلان قاضي مركب يجوا هدي بيها للدقيو يهدي شذاك للدقيو شذاك للدقيو الله قاطع هدي بيها للدقيو وقلنا ما لما نشوت يجي يحلوه أم بيقول مريان اسكدا واحد كلا لبو تنكل الراشد مصو صارتان وحمد بيرتان سعودي عربية أقول إنه واحد بيرتا حاجة بصلة يحاجة بطاطا يحاجة عنب بيرتا لكن واحد كلا رزقي وقلون تل أمريكا مصو بحان إمارات عربتنا اسكي بدا يسوقو نمن كان عربيات أصلا
sacuudiga baa waxay beerta qudaarta iyo basash iyo bardhada iyo anaa tegayo taas anaa ka markhaatiya wala igagama sheekaynayo marka laakiin waxa kala mariyo oo dhan waa u soo dhoofaan haddii hadda xuutiga intay go'aan qaataan badda cas baaba almanda bay xirtaan nimankaas waa u dhan tahay gaajo u dhimanayaan ala itaxaal hawli halkaasay maraysaa dhinaca kale Israa'iil ayaa xabsiga dhigtay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda wadanka Mareykanka waliba dadka xabsiga la dhigay waxa ka mid ah mas'uuliyiin oo xildhibaan ku jiraan oo markaas dawladda wadanka Mareykanka ka socda ayaa ka mid ah xildhibaanadaas marka xabsiga loo taxaabay waxa la leeyahay qiyaas adiga Mareykanka xildhibaanadu waliba waxay ka tirsan yihiin xisbiga la yiraahdo dimuqraadiga ka tirsan yihiin waa xildhibaano Amerikaana oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan waa xisbigi marka iyaga la weeraray ay xogaga reer Falastiin ay markanaysa dhulkooda ay weerarka ku qaadeen garda markaas weerarka xaq ah ay qaadeen xogaga geesiyaasha reer Falastiin waa dadkii u soo gurmaday waa xisbiga Joe Biden waa dadka markanaysa marka dhowr xildhibaan oo nin la yiraahdo أنا مالين أصلحان إيش إنه كسو جدو باكستاني ميلان وحامد عيسى الله يرادا رخان أيا الله يرادا نينكاس أيا حلا يوحليا هاي wuxuu rabay inuu galo daanta galbeed Israa'iiliyiintu ay xoog ku haystaan laakiin daanta galbeed Falastiiniinta la yiraahdo waa dadka waalan iyo duqomaha meelaha looga sheekay weeye Falastiin laba ay u qaybsan tahay daanta galbeedna Falastiiniinta jooga daanta kalena waxaas waxba kama jiraan war dhulkaas oo dhan xogaga burcada ayaa xoog ku haysta marka ragii furan lahaana ma dheer biidin Ilaahi ta'ala alay taxaal xildhibaanadan marka Mareykanka waxay tageen waxay isku dayeen inay daanta galbeed ay galaan حبسيانا لا dhigay waana la xiray muddo 90 daqiiqo ayaan maxabis u ahayn buu leeyahay Israa'iil sidoo uu warinayo telefishinka la yiraahdo Al Jazeera waxa af Ingiriisiga ayaa saas warinaysa warbaahinta caalamka oo dhan way warinayaan CNN ta warinaysa xildhibaanka markuu xuleeyahay muddadaas 90 daqiiqo ayaanu maxabis ahayn aniga iyo mas'uuliyiin kale oo Amerikaan oo ila socota hatta mas'uuliyiintii Amerikaanka ixtiraam ma jiro ما أنت حير لهايه واللي بنكان وحو كمid yahay xildhibaanada sidoo weyn u diidana xasuuqa magaalada Gaza ka socdayo waxa Lebanon ka dhacaya iyo dagaalkan gobolka bariga dhexe nimankan burcad ay xurinayaan oo aad u diidana dabadeedna wuxuu leeyahay muddo 90 daqiiqo ayaan maxabuus u ahaa wali waxa la igu xiray bulay xiro military oo ay leeyihiin ciidanka Israa'iil marka arintaas ayuu isaguna weeranaya hatta ixtiraam male وردولد ودك بريكانك ورحلبان هذا عاد مشى كحرس وأكو مشاركة كو أقلاض وأكو هدي الله بكور هي مريكانك وعدتك اللي عقد كوجب بحين جري وعدتك إني كايب وحكوا كسي جري ويا مركب إن تحيرتو ده حبس الجلسة حكى سكر لسه nothing ويا مركب لكن من قاصد يجوا حمل احترامان وأي هاي لنا عكلنا إسرائيل بوحيلها السد تلفزيون كالعربية ورينيو وحبرتمان يساعدن كي هيجان جلية وحن ربينا نيجون ويرك قاضو مريكان وما دام هذيك ويرك دور مرقاده أنا جو هالمر يصير ويرك عن قاده إيران وحيلها هاي أنا جي مريكان كوا كلتمنا كلت محل الراجل وكليتن طبعا هدوي ويرر هدانا نو ويرر ولا جاي بنو يسوي ويرر لكن وحيلها هاي هذيك هدي أميشان سوق شو oo aad dagaalkan ku soo biirto oo aad weerarkan soo gashid wax ku caawinaya la rabaa dagaalkan shaam buu noqonayaa ama dagaal shaam oo buuxu noqonayaa ee waxa la leeyahay ala caline ciidankayga diyaar waaya iyo irkan soo duminay wax ma tartee fadlan kaali soo duulo anigu wax iga qabo hadii kale calaalka jooji marka Israa'iiliintu way yaqaanaan Iiraaniyiintu hadda Beirut ma weerari karaan hadii Beirut la weeraro Tel Aviv gubanaysa maxaa yeelay Beirut hadda waxay ku hoos jirtaa عاصمة أم إلى هذا كعنك جمهورية الإسلامية إيران مرك والول بدن أيار التاسع كذا شيء وحين لا مرك عيدن كيجي هيجان ويا بلايان سمينا يا ولكن جوبيا عركان قاضيا على بوق انت اسكي ديسال إيران ملي كنت الوقت تقانا هاي حيني هذا الله هاي واحد سكوا هذا الصوت مركب تاسين هالكاس مريزة واقع dhinaca kale dawladda waddanka Mareykanka ayaa 18 diyaaradood oo helicopter iyo diyaaradaha kale ee dagaalka isugu jira gobolka bariga dhexe keentay qaarkood waxay ku dhawaadeen gacanka la yiraahdo Hormuz halkaas oo ay gacanta ku hayaan jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran militarigeeda marka waxayna ciidanka ilaalada gacanka waddanka Iran ay sheegeen hadii diyaaradahaas ay u soo dhawaadaan gacanka Hormuz ama xeebaha waddanka Iran diyaaradahaas inay holci doonaan marka dhamaantood waxay isku dayeen qaarkood waa helicopter weeye hawadeena shidaal ku qaataan qaar waa diyaaradaha waaweyn kuwa dagaalka marka Mareykanka laakiin wuxuu leeyahay intuu muuqaal soo duubay wuxuu leeyahay ha waka diyaaradahaygii baa waxay waardeynayaan gacanka Hormuz inaga gacanta ku hayna Iiraaniyiintu waxay wadaan hawl badan iyo hadal yar haddaad gacanta ku haysaan
kaalay maraakiibtan meesha dhooban sii daaya haddaydan sii dayi karin dee qaylada iyo buuqa joojiye marka diyaarado badan ayuu kusoo daabulaya gobolka bariga dhexe oo weliba kuwa shidaalka diyaaradaha kale cirka ku siiya qaar ka mid a khibrad waxay leeyihiin maraykanka dagaal ayuu u diyaar garoobaya qaarna waxay leeyihiin maya madaxweyne Donald Trump lagama yaabo inuu dagaal ku noqdo maxaa yeelay wixii 40 maalin ee dhacay mar labaad hadday soo laabtaan halis kale ayaa jirta marka waaga dhinaca kalena wadamada reer galbeedka iyo bariga dhexe iyo dhamaantood ayaa iyaguna telefoon ku waashay oo waliba Iran ayaa la baryaya waxa la leeyahay war adiga gobonimada waa ku aragnaa walaga gardaran yahay bal raali noqo wada hadalada Pakistan iyo dawladda wadanka Qatar iyo reer galbeedka waxaan oo dhan horta dawladda wadanka Mareykanka wada waxay waree hoy dagaalka iga gaar warnamiki waxa xanaaqeen war iga gaar boobsiya telefoonada waa ka daba taga war lagu qabsada ku ooy nimanka arbeed aawe because wuxuu la ogyahay haday Iran furku tuurato Mareykanka gobolka ma joogi doono iyagana way u cadahay hadda salagyadoodii kii Imaaraadka iyo kii Urdun iyo kii Bahrain iyo kii Kuwait iyo kii wixii dhan waa ololayaan meel aska ku noolaan kartaa ma jirto marka oo halkaas ay maraysaa waxa dhinaca kale qodobkan wuxuu isugu noqonayaa madaxweyne Donald Trump ayaa waxa laf dhun gashay ku noqday Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran The Middle East ay waxay qoraysaa wuxuu leeyahay Trump waxaan ka walwalsanahay buu yiri xogo badan baa la wadaagay oo mukhaabaraadka xogaga burcada ay la wadaageen waxaan ka baqayaa buu leeyahay Iran inay disho laakiin Iran hadda anagu idisho wax u badan tahay iyadoo ciqaaba ka dhalan doonto kulaha laakiin ma baciidsanayo Iran inay disho maxaa yeelay hawlo badan oo culus ayaa jira dhowr maalmood ka horna aqalka cad ee wadanka Mareykanka ayaaba lagu arkay diyaarado drones ah xilli ay markaas mar dhowr soo bandhigay laakiin dhacdada markii ugu dambeysay Netanyahu boqod wadankaas Mareykanka ayay dhacday laakiin mar dhowr la sii daayay waliba iyadoo madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka GD iyo sidoo kale Netanyahu iyo hadii laba ku rooyahay Donald Trump ay ku jiraan markay banaanku soo baxaan looga talagay in lagu qarxiyo laakiin si ayada ka hortagtay markaasna waa la badbaaday marka Donald Trump wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa buurana gacanta wadanka Iran ku baxo laakiin waxaan amray buur haday Iran anagu idisho si fiican in loo duqeeyo waa markii ugu horeysay oo madaxda Ameerikaanku gudaha wadanka Mareykanka ay kaga walwalayaan inay khaarijiyaan marka sirdoonka dawladda wadanka Iran wuxuu ku soo korwaa isleega doon hadii la ka dhigo bal aynu eegno hadii ay jiraan wararkii ugu dambeeyay wax soo kordhay hadii alla ka dhigo laakiin xaaladda marba marka ka dambaysa waxay u waqtahay mid sii xumaanaysa war degdeg oo hadda telefishinka RT uu qorayo dawladda wadanka Turkiga ay leedahay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay in uu refresher ku sameeyo ama isku shaadeynayo golihiisa wasiirada ka gadal markii xaaladda wadanka Ukraine gaar ahaan dhinaca military way foolxumo badan ka timaadeen waa isla arki doona wararkani wuxuu ku soo kordhay laakiin aan hal mar eegno hadii wax soo kordheen oo dheeraada waa warbaahinta markaas caalamiga ah waa qodobo kale iyo warar kale waa wageli doona ku saabsan barnaamijka kan ku xiga hadii alla ka dhigo idinka yeeli doona ayaan idinka gudbi doona Mareykanka iyo yaani Turkiga iyo Saudi Arabia oo Israel laga celinayo oo xaaladda ku liidato iyo boqortooyada Saudi Arabia xitaa hadalkii gabtay ayaa qabay qodobada soo socda hadii alla ka dhigo barnaamijka soo socda ayaan ku eeganaa laakiin markaan aynu eegno hadii ay jiraan waxyaabo kale warar soo kordhay iyo waliba shirka magaalada la yiraahdo Amman caasimadu Masqat wararkii ugu dambeeyay ayaan isla eegaynaa hadii alla ka dhigo warar kale hadii ay kordheen marka hagaag wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Cumaan ayaa sheegaysa inay u yeertay safiirka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran u fadhiyay caasimada wadanka Cumaan ee Masqat waxaan looga yeeray kulay duqeymo dhacay wax noocaas ayaa looga yeeray laakiin Iran iyo Cumaan way soogayiin waxaas waa dadka lagu qancinayaayo waxa weey ma aha wakaaladda wararka wadanka Bahrain ayaa iyaduna waxay warinaysaa fariin tacsiya waxay la wadaagaysaa mas'uulkii hore ee dawladda wadanka Qatar markaas ay dhintay hagaag waxa kale oo arkayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed sida telefishinka Al Jazeera uu warinayo ayaa si weyn uga tacsiyay geerida ku timid boqorkii hore ee dawladda wadanka Qatar maadaama madaxda caalamka sheegay isaguna nin Soomaaliyeed maadaama uu yahay inaan ka taga way la furxumaatay waayo mas'uul ana qof wadanka soo hogaamiyay intii karaankiisa waayahay dawladda wadanka Jarmalka inta badan tacsiyo badin wax kale warar soo kordhay ma arko wixii kale wararkan barnaamijyadan ku soo kordha hadii alla ka dhigo waan idin wadaagi doon hadii alla ka dhigo saaxiibadayo dib intaan u kulmi doono nabadgelyo